السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسر دواء أين جنبي أنا وحيدها أيام وأنتو حرينا كهلا أرين أو نحدين أو كده عدي ولاشين كبر ولاشين ونيروبي جوكتو وليبا ميلها قحوتي يا شيء أرنتن وأرين يعني وحيالا بدن على جبران كرا ميت على جبران كرا دقن كحون أو دقن كحون أي سومالي نمك سومالي ده قاركود أي برتين inay dumarka ay si xun u galaan waxa kale oo laga baran karaa in guurka loo dhaqsanayo qofka iska aroosiisid adoo ka aqoonin wuxuu yahay ama dabeecadihiisa adoo baranin iska galaysid waxa kale oo laga baran karaa qisadan iyo qisooyin kale oo saas iyo hore u dhacay waxa kale oo laga baran karaa qisadan in la forjignaado ama la iska ilaaliyo gabdhaha kale waxa rajeynaa oo video-gan daawan doono qofka ay guursanayaan ama ay rabaan inay xoogaa il extra inay u fiiriyaan ay iska fiiriyaan si fiican saas daraadeed waxaan rajeynaa inaan videogan aad daawatiin walaalihiin aad la qaybsatiin aad sii qaybisiin insha allah si gabdhaha kale walaalaheen kaleeto soomaalida meel kasta joogaan qof ninka aad guursanaya qofku raba ahaado qoomiyadu raba ahaado inay iska ilaaliyaan ay mataqaantaa fahmaan dabeecadaha ninka iyo sida qofka loo fahmi karo iyo inay qofka iska guursanin degdeg marka ma sha Allah anoo bilaabatay marka sheekadan waxay ku dhacday gabar walaasheen Fortune baa la dhahay idii seegeeda cusub waxay isqabeen 3 isbuuc adiga 3 isbuuc ta ma gaarayso waxay isqabeen 21 maalmood isqabeen 21 maalmood ka damba gabadha waxa waaye sida la sheegayo oo dadka hadda dad yaqaanay ee social media u sheegeen gabadhu waxay ahayd furfuran gabadhu waxay ahayd yani asxaab badan leh gabadhu waxay ahayd ma sha Allah jecel inay asxaabteeda la joogto waana fahmi ninkana saas ma ahayn ali saygeeda wuxuu ahaa qof xirxiran wuxuu hinaasa qofka fahmeen waa maseer badnaa ma jecleen inay dad la hadasho ma jecleen inay banaanka aado marka arrimahan oo dhan markii isku keenay gabadhii waxay noqotay gacan buu u qaaday si xun buu u dilay si oo arxam dare si hada qof cadowgaada hada saas looma dilo sidaas buu u dilay gabadha marka wuxuu gaarsiiyay xanuuno badan wuxuu ka dhaawacay badanaa wajiga si xun uga dhaawacay wuxuu ka dhaawacay meelahan feeraha wuxuu ka dhaawacay dhabarka marka waxaas oo dhan waxa keenay ligirihinaasa ama maseer sida dadka u dhow ay sheegayaan iyadana ay sheegaysa gabadha waa ka xumahay video-ga rabay inaan soo geliyo laakiin kuwa qaarkood meelaha la soo geliyo copyright way markaas xaqum ma soo qaadan kartid mid kale ma u fiicnaba gabar maskiin oo si xun loo dilay oo walaasheen in la soo dhigo video-geed iyadoo meeliyo dhan xanuunayso marka saas daraatay laakiin masuulkeeda aan soo dhiga sidoo u kala wajiga kalisu u kala isaa u aragtiin insha Allah qofkii aarabin inuu kana xaya amal u gudbo xiruusi kara u gudbin kara marka hadda intaan soo dhigaa masuulka insha Allah la socdo marka gabadhna Fortune la dhahayo sida iyada sheegayso guurka ka hor inta la isguursanin wiilka wuxuu ahaa ama seegeeda wuxuu ahaa qof degan qof happy qof yani nolosheeda ay ku jirto ku faraxsan asxaabteeda wuu jeclaa yani ma dhihi jirin asxaab yaa la hadlaysaa gabadhana sida ay sheegaysaba yani asxaab yar leeyahay laakiin ma qof gabar wareegtooy ma ahayn ama gabar markasta socota laakiin mararka qaarkood waxay jeclaan jirtay saaxiibadeeda u dhow gabdhaha inay shaah la soo cabto ama hawgadi saxiir ku soo qaadato ay jeclaan jirtay iyadaaba sida iyada noo sheegayso ee social media u sheegtay dadkii wareystay mid kale waxa waaye markaas guurka ka hor calaamadahan muu qabin ee tiri maseerka ama hinaasaha muu qabin qof iska happy ahaa qof bashaashu ahaa ma dareemin tiri marka waxay tiri ma sha Allah nin fiican baa heshay oo dabeecad fiican qalbi wanaagsan marka saas daraadeed waxay tiri ninka waaba ninkii noloshaada la qaybsan lahayd saas u aroosay maxaa ka dambeeyay marka waxaa ka dambeeyay in ninkii arooskiga guurka ka damba uu noqdo inuu gabadhi control inuu noqdo ma bixi kartid inuu dhaha inta ma mari kartid inuu dhaha yaa la hadlaysa gabadhi oo dhanba inuu koomba geliyo cariiri gabadhi iskaga dul qaadanaysay laakiin qof
qof dabeecadiisa ahayd in mataqaanta mararka qaarkood yani qof iska bashaash ee qof iska jecel asxaab ama ehelkiisina u taga ama xiriiriya ama asxaabtiisu xiriiriya ma laga dhigi karo yani ma laga dhigi karo qof kale macnaha adiga hadda daawanaya hadaa isweydiisay dabeecada u dhalanin sanka laagama gelin karo yacni waxaa ka wadaa dabeecada u dhalanin laagama qasbiyan ku qaada lum dhihi kara hadda aniga camal dabeecad aa lahayn hadii layidhaha xoog saas ku noqo qofkas ku noqo ma soconayso maaha sax waa idinka taa ila fahmaysin maa maasha allah marka saas daraadeed yani qofka dabeecadiisa ma la bedeli karo labada dhinacba anigana waxaa waaye labada qof oo isguursanaysa hadday isku faraxsan yihiin qofna uma baahna dabeecadiisa in la bedel in laisfahmo un le waayo communicationka wada hadalka in la saxa marka gabadhna marka saasaa u aroosay tiri maasha allah laakiin ka damba dil markay u dambeysayna gacana u qaaday ilaa gabadhii ay suuxdo oo mataqaantaa meesha qaxootiga kenya ee ku jirtay ee dheheen dakhtariinta joogay waxaa la yaabay walaalayaal kan ani jeceyl uma maleynayo ninka wuxuu ku dhahayaa waa jeclahay gabadha waxaa rabaa waa xaaskayga waxaa rabaa ibnaha aa dhali doono hooyadood inay noqoto laakiin qofaa jecesha ma dili lahayd bal isweydii horta adi ama qofku jecel ma ku dili lahaa jeceylkas waa jeceyl cusub walahi ma ani weligii jeceylkas ma arkin fili hinta hataa kuma daawan filmaanta hintiga hataa isma dilaan waa laga yaabaa qofka isaga daraadiis in loo dilo qofkan isagoo difaacaya laakiin waa ku dilaa waana ku jeclahay ya waa la yaab waa jeceyl cusubaa umleynaa laakiin kaas jeceyl ma waa mid wareersan jeceyl wareersan waay oo xoogaa naceeb ku jiro marka calaa kulli xaal gabadhii marka waxaa loola cararay isbitaalka weyn oo gaarisa ambulasta waxaa loo wacay degdegte ambulance oo waxaa loo wacay emergencyga degdega loo wacay in dhaqso la geeyo meeshii baa la geeyey indhihii saa masuurka hadda oo aad soo aragteen mar kalena waa kusoo celinaa insha allah indhihii waa isku dhageen iyadoo dhan way barartay sidii adoo weligaa ku qaninto shinni weligaa ma ku qaninto allergic weli dadka ku markay ku qanto adoo dhan waa bararaysaa marka sidii bay gabadhii noqotay isbitaalka hadda ku jirtaa la dhahaya hadda waxay yidhiise clip yaroo daawaday laakiin clip yaroo daawaday aa ka arkay meesha waxaa waaye oo hadlayso indhaha si fiican saas leedahay indhaha ma kala furi karta haddaa daktarka leeyahay meeqa farahaya 3 miya 2 miya ma sheegi karto weli isbitaalka bay ku jirtaa xaaladeeda ilaahay caafiya gabadhii wiilkiina kama daba imaanin laakiin arrintii hadda akhbaartii u dambeysay uu sheegayay wuxuu dhahayay aniga xaaskayga waa jeclahay ibnaha waxaa rabaa ibnaha aa dhali doono hooyadood inay noqoto weli kusoo celcelinayay marka walaa waa wax laga naxaa horta run ahaantii in gabar soomaaliyeed oo hadda guur iyo nolol cusub gashay insaas loo galo welina qof kalmaa saygeedii uu sameeyo waa la yaab baryahan waxaa u maleysaaba haddana nimanka soomaalida kuwa fiican lama arko kuwa xunxunka xaasaskooda dilaayo gabdhaha xoogaayo farxumeynayo gabar yar walaa qof weynba gabar dilaayo inay soo bateenba haddii joogaan soomaaliya walaa qurbaha meel kasta marka ilaahay anaga haayo dadkaas midda kale aa raba ra'yi kala raba inaa gabdhaha weli aroosin inaa u dhiibo yacni qofka aa guursanaysid dabeecadiisa si fiican u barakooda horeeta yacni waxaa ka wadaa weligaa qof si fiican uma baran karti inaa isla degtiin oo isku guri imaatiin mooye laakiin waxaa ka wadaa xoogaa dadkii asxaabtiisa u dhow maaha asxaabaha kore weydii meeshuu kusoo koray haddaa taqaantid dadku yaqaana weydii suu ahaa hebel waxaa weydiisaa dadku la shaqeeya haddaa taqaantid marka qaarku markaa meel ku kulantiin kala socdo xoogaa hay hebel seebaa ku xad weydii sababto haddii aa guurkaas iska gashid oo ku dhahaa oh baby I love you waa ku jeclahay biyaha kaa dhex arkay maxaa waaye cuntada cunaya kaa dhex arkay la-aanta ma joogi kari adigana sidii sheek hindi maarkino shaaruuqani kaaji lagu joogo anigana sidoo kale cunto ma cuni kari la-aanta habeenkii ma saaxdi dhac iska aroostid qofkan maxaa ka ogtahay markay hadhow inuu si fiican kuula dhaqmanayo maxaa ka ogtahay inuu yahay dilaa maxaa ka ogtahay inuu mental ahaan maskaxiyan ahaan uu dhaawac soo gaaray oo sidaa agtiin boqolkiiba intaas soomaalida badanaa dhaawaca soo gaaray dagaalkii iyo xabadii iyo kasoo gaaray marka saas daraadeed gabdhoo iska ilaaliya qof kastoo ku dhaha waa ku jeclahay ilaahuma 10 sano isla socotiin qofka soo baar dabeecadiisa dadkii adoo hoos ka baarayo is ilaaliya gabdhaan idii lahaa mash intaas waayo waxaa maanta rib inaan ila qaybsado gabdhaha walaalay quruxda badan wiilasha soomaaliyeedna idinka oo gabdhaha dumarka si xun u galaayo gabdhaha xaaskiina weliba dilaayo oo mataqaantaa oo si xun u galaayo ilaahay ka baqa gabadhan haddii aa rabin iska fasax
adduunka allah waa si xaliir adduunka waa weyn yahay waasac waaye gabar kala helaysaa oo dabeecadaada leh hadda xirxiranta gabar dabeecadaada helaysaa gabar ee adigana haddii aad tahay qof bashaashe qof bulsho jecel waxaa raadsataa qof isigana bulsho jecel oo yacni aa xirxirneen sababta adiga iyo bulsho jecel oo haddii aa qof xirxiran dooratid dibkii meeshuu ka imaanaya wiil adigana sidoo kaleeta maasha allah marka waxaan rajeynayaa insha allah inaa wax ka faa'iidiin gabdhaha aroosin ka fikira qofka aroosaysiin iskaga ordin marka qaarkood xaalado waxaa jira keenaya qofkii inuu guurka galo laakiin kuma raacsan xaalad kastoo ku jirtid laba salaaduka ilaahay bari guurka maaha xal adi nolol xunaa ku jirtid adi guriga lagu dhibaayo adi oo dhaqaala daro jirtaas leedahay qofkan aroos isiga guri aku dhigo ka fikir wixii ka dambeeya gadaashaada fiiri ka fikirin waxaas yariiska hortaada yaalo laakiin waxaa ka fikirtaa maxaa ka dambeeya sheekadan maskaxda xogaa bal intaa koobshaa soo qaadad bal haye bal 2 daqiiqo adiga isla hadal yacni saahada maaha waala maaha laakiin isla hadal waxaa dhahdaa hiblaayo haddii ninkana iska arooso bal maxaa ka dambeeya sheekadaas waa inaa dhahday waa inaa isweydiisiin waa ku jeclahay iyo waxaan iyo iska aaminaad hadda adduunku wuu xumaaday qof kasta liskama aamini karo gabdhooba is ilaaliya insha allah wiilasha saa sameynaya ilaahay ka baqa wiilasha fiican oo soomaalidan boqolkiiba 90 way fiican yihiin maasha allah idinkana soo kaca marka aragtiin wiil soomaali ama nin soomaali qala sameeyey ka hadla gabdhaha noo dhaafa dheh gabdhaheena saasa ku sameynayna gabdhaheena waa gabdho fiican yacni tusa inaa anagi aana garab taagantihiina tusa sababta kuwii xumaanta leen la arkaa faafinaya kuwii fiican lama arko waan ogay inaa maasha allah boqolkiiba 95 hataa aa fiican tihiin 5 lee xoogaa ma arkin wadada ka qaldantay ilaahayna ku soo hadeeyay gabdha is ilaaliyaan idii laa wiilashana waa kuwaasan maasha allah maanta barnaamijkeena intaasoo maanta ku egyahay videogan hataa ka hesha walaalayaal like subscribe noo saara sida share gareey si walaalaha kale uga faa'iideystaan like wax badan ma tarto laakiin waxay tartaa video kasta like-tiisa ka badan yahay youtube ku sii qaybinayaa si walaal qof kale oo meesha iskaga jira suu iskana u arko subscribe-tana walaal waa free soo ma hadda iska saarahay wax lacag ma joogto mugti maasha allah marka insha allah wixii su'aalo commentaar aad qabtiin hoosta hoose nagu soo qor maasha allah waxaa kale iga soo xiriiri kartiin meesha waxa ku soo qoraya instagram-kayga iyo waxa ku soo qoraya snapchat-kayga su'aalaha waxay ku soo diri kartiin adaartiin ila tali adaartiin inaa يعني sheekaan wax ila arabtiin ina ila qaybsatiin ma sha Allah waa iisoo diri kartiin meesha ku soo qoraya waa inoo meeshaas insha Allah salaam alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh